السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxay noo tahay sharaf iyo farxad weyn sida quruxda badan oo wanaagsan oo diiran aad noogu soo dhaweyseen meel walbana aan soo marna sidaan oo kale tahay runtii waxa weeye waxaan la iloobi karin taasoo ay muujinaysa inaad tihiin mar walbana idhaahdo inaad tihiin dad dowladdooda jecel dad horumar jecel dad midnimo jecel iyo dad madaxweynahooda jecel aad iyo aad yaan idinkugu mahad celinaynaa waxaa meeshaan ii muuqda horumar badan yaa ii muuqda sidaan ka soo arkay garowe aan ka soo arkay qardho aan ka soo arkay magaalooyinkii guud ahaan aan soo maray iyo tanoo hadda ugu dambaysa oo boosaaso ah waxaa ka muuqda horumar aad iyo aad loogu farxo hadday noqoto jidad hadday noqoto horumar kale waxaan arkaa runtii dowladdiina puntland inay howl wanaagsan idiin qabatay adeeg wanaagsan idiin qabatay waanu ku mahadsan yahay madaxweynihiina cabdiweli maxamed cali gaas wuu ku mahadsan yahay annagoo hadda nimidna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan adeeggaas wax ku darsanno oo aan wax keenno oo wax laidin soo gaarsiiyo maxaa yeele cadaaladdaa ku jirta in dalkao dhan wax alla wixii aan u hayno aan soo gaarsiino adeega cadaaladdaa ku jirta insha allah wixii hadda ka dambeeyana waa soo noqonaynaa waxaan ka baqaynaa inaad tidhaahdaan martidan soo noqod badana sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen runtii waxay indhaha u furaysaa dad badan oo soomaaliyeed bacdamaa aanan hore loo soo gaari jirin oo la lahaa dadku waa ka fog tihiin dalka waa ka fog tihiin laakiin waxaa jiray daldhaweeye jid dheer aan soo qaadnay oo aanan waxba tabinba innaba ha yaraatay intaan soo soconnay jidkaas dheer iskama dhicin sidaas inuu ahaado muddo 27 sano markii dowladdii dhexe ka baxday meesha waxaa lagu hayay dayactir yaa lagu hayay oo hadda mar walba aan soo arkaynay dowladda hadda joogta oo idiin joogta inay faraha ku hayso dayactirkeeda insha allah dalka intiisa kalena oo burburka galay oo jidadkii xumaaday inaan iyada naftiga soo celinno oo aan soo gaarsiino jidadkan dheer oo aan aragnay oo inaba ha yaraatee wanaagsan aan soo gaarsiino insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wixii burburay aan soo gaarsiino insha allah hadduu ilaah yidhaahdo magaaladana waa dhex gelaynaa inta noo harsanna waa arkaynaa haddii aan wakti isoo helnana waa isxog waraysanaynaa waxaan idin soo gudbinaynaa dowladda waxay qabatay iyo waxa aan qaban doono mustaqbalka soo socda idinkana waxaan rabaa inaan idinka dhegaysto waxa baahidiinu tahay waxa dareenkiinu yahay hal mid horta waa xaqiiqa nabaddu inay tahay horumar waa muuqataa dalka oo dhanna wuxuu u baahan yahay nabad taasaa waxaan mar walba nidhaahnaan ku soo celinaa nabaddu waa nolol nabaddu waa nolol soomaaliya o dhanna waxaan u rajaynaynaa ilaahna uga baryaynaa inuu dalkeena noqdo nabad u noqdo hadduu nabad noqdo wax yar gudaheeda waxaan ku gaaraynaa horumar la taaban karo oo weliba aan uga horumari karno afrikada kale maxaa yeele annagoo intaas burbur ku jirnay annagoo haysanay dowlad aanan maxaan ku raha istaagin oo recovery ku jirtay inaan aragno horumar intaas la eg oo ay keentay sida aan maqlaayo waxaa la yidhahda isku tashi oo dhexdiinna ah ummaddu markay isku tashato ummaddu markay isku kalsoonaato ummaddu markay is aaminto waxaa ka soo baxa waxa aan haysanno waxaad haysataan yaa ka soo baxa taas oo ballaaran weeye waxaan doonayno meel walba inaan gaarsiinno inaan isku tashanno inaan is aaminno inaan walaalowno inaan midowno intaas wey waxaan farinta maanta idin hayo iyo weliba taasoo lagu daray horumar iyo dib u heshiisiin lagu daray oo aan rajaynayno muddooyinka soo socda inaan xoojinno ummaddana aan isu keenno oo aan walaalayno waa mahadsantihiin walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullah